qisadeen waxay ku saabsan tahay dacwat almatluum qofka la dulmiyey alla barigiisa oo aanu ilaahay soo celinin waxa uu wariyey al-imaam ad-dahabi kitaabkiisa la yiraahdo al-kabaa'ir wuxuu ku wariyey qisadan cajiibka badan wuxuu yidhi magaalaan soo galay nin baa dariiqyadeeda wareegaya gacantu go'an tahay gacanta ilaa iyo garabka halkaasay ku go'an tahay dabadeedna ninkaasi hal eray buu ku celcelinayaa wuxuu leeyahay man ra'aanii minkum falaa yadlimanna axada war hooya cidda aniga ee aragtay cidnaba ha isku dulmiin intaasuu ku celcelinayaa kelmaddaasuu ku celcelinayaa jumladdaas ayuu ku celcelinayaa man ra'aanii minkum falaa yadlimanna axada ayuu ku celcelinayaa dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku idhi maa qisatuka yaa cabdallah arrinka qisadaadani arrin baa ka dambayso kolleeya waa maxay dabeedna wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yidhi jabbaar min aljabaabira nin baan ahaa buu yidhi koox wata oo markaasi kibray oo qooqay oo dadka dulmiyo oo dhaca oo hantidooda xoog ku qaata dabadeedna waxaan arkay maalin maalmaha ka mida nin xabad kalluun oo weyn oo qurux badan sita keen baan ku yidhi kalluunkii dabadeedna wuxuu yidhi ninkii wuu ii calaacalay oo wuxuu igu yidhi miskiin baan ahay saaxiib alciyaala carruurtayda quutalyoomkoodii baan xabaddaa kalluunka aygaga xidhan hayga qaadina iska kaydaa dabeedna wuxuu yidhi waan garaacay kalluunkiina waan ka qaaday xabaddii kalluunka ahayd baan qaatay ilaahay amarkiisa kalluunkii dhintay ee aan noolayn ayaa fartaa iga qaniinay buu yidhi qaatay oo gurigaygii la tegay oo cunay habeenkii waan ladi waayey xumad iyo xanuun ilaahay oona yaqaanaa isugu ka yimi buu yidhi dabadeedna subaxii baan dhakhtar raadsaday dhakhtarkiibaa ayaa igu yidhi buu yidhi waa bidaayatu alaakila waxa kugu bilaabantay gaangeriga waxaan la idhaahdo ee jidhka ilaa la jaro mooyaane aan dawo kala jirin ayaa fartaadan ku bilaabantay hadda waa fartii shalay uun dhaawacu gaadhay fartii baa lay jaray bacdamaa marat alayaam baa xanuunkii sii kordhay gacanta inta horaa lay jaray way sii socotay oo ilaa iyo waxa lay jaray xusulka way socotay oo waxa lay jaray ilaa iyo markaasi garabka maalmoba in baa lay goynayey markii halkaa garabka ay marayso ayuu nin igu yidhi dhakhtarradii miyaa mise waa qof kale ayaa wuxuu igu yidhi warniyow arrin baad samaysay maxaad samaysay dabeedna wuxuu yidhi arrinkii baan uga warramay wuxuu yidhi war intaanad wada googoyn een maalinba in lagu goynin orodoo raadso ciddii aad xaqooda ku xadgudubtay oo dembi waxaad ku tidhaahdaa icafiya wuxuu yidhi waxaan bilaabay inaan raadiyo saaxibu samaka ayaan raadiyey ilaa markii dambe aan helay dabeedna lugihiisa hoostiisaan isku tuuray waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay baan kugu dhaarshaye ilaahay dartii ii cafi wuxuu yidhi ninkii ma garanaya wuxuu igu yidhi maxaad ahayd waxaan ku yidhi buu yidhi waxaan ahaa ninkii kalluunka dabadeedna intuu aad iyo aad u naxay buu ooyey ninkii kalluunka lahaa ee miskiinka ahaa dabeedna wuxuu yidhi waan ku cafiyey xanuunkii kelmaddaasi afkiisa markay ka soo baxday waxaad moodaysay in laga qaaday markaasi miinshaar lagu goynayay oo kale ma intaasay ku joogsatay maya ninkan daalimka ahaa ee markaasi dulmigiisii caqiibadiisii dhadhamiyey ee haddana ciddii uu dulmiga u geystay ka cafis dalbayaa wuxuu ahaa nin caqli badanee wuxuu ku yidhi maxaad niyow igu tidhi waxbaad igu tidhiye ii sheeg waxaad igu tidhi dabeedna wuxuu yidhi wax kale kumaan odhan allaahumma innaka araytanii quwata haada daalim fii dacfii waxaan idhi buu yidhi ilaahayow waxaad i tustay awoodda
daalimkan ayaa dacfigayga iyo tamardaradayda iga dhex tustaye faarinii quwataka fiihi yaa rabba alcaalamiin ilaahayow adiguna awooddaada weyn iga dhex tus isaga baan idhi buuy allaahu akbar waxa weeyaan dacwat almadluum ittaqi dacwata almadluum ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka boqo allabariga qofka markaasi la dulmiyey fainnahu baynaha wa bayna allahi xijaab fainnahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab dacwadaasi iyo allabariga qofka madluumka ah iyo markaasi ilaahay wuxuu dhaxeeyo xijaabihi ma jiro calaa duul buu ilaahay u ajiibaya ayaamahan aynu adduunyada joogno dulmiga aynu dhexdeenna kala gallay waynu iscafin karnaa waynuna iska cafis dalbi karnaa laakiinse marka ilaahay agtiisa la tago waxa weeyaan warku kaa wuu ka duwan yahay walaa taxsabanna allaha qaafilan camaa yacmalu aldaalimuun innamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaana aad hesho muxaadarad iyo waliba barnaamijyo diin iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwadda isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobilkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka haddaba waxaad ku xidhnaataa adeegyada baraha bulshada sida Facebooka, TikToka, Twitterka, YouTubeka, Instagramka